dhowr sano ka hor qofka Soomaaliga wuxuu ka gamban jiray inuu sheegtay inuu maalin tagay magaalada Addis Ababa inuu saaxiib la yahay qof Itoobiyaan ama inuu adeegsado jumlada ah walaalaheen Itoobiya. shacabka Soomaalidu meel walba ay joogaan ugu badnaan arrintan waa laga sinaa. Soomaali badan oo gumaysidida ayaa wali u xiran taliska Addis Ababa. sidoo kale qaar badan oo gacantooda ku jiray ayaan wali rag iyo ruux lahayn. si walba ay xaaladdu heerkan ku gaartay bulshadu iskuma khilaafsaneen cadaawada labada wadan dhex taala oo soo jirtay ilaa iyo qarnigii 16aad inaan laga tanaasulin dhulka maqan iyo in Itoobiya aanay weligeed daacad ka ahayn macaamil wanaagsan oo ay la yeelato Soomaaliya. wax walba waxaad moodaa inay kun digrii wareegeen tan iyo markii la doortay madaxweyne Farmaajo. xiisaha ay Soomaalidu u qabtay Itoobiya ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay qarniyo kadib. lama yaqaan waxa saxda ah ee farxad gelinaya dadku ku siimaahaya jacaylka loo qabo xukunka Addis Ababa. marka laga hadlayo hogaamiyaasha siyaasadda mar walba waxaa jiray siyaasiyiin Soomaali ah oo xiriir qarsoon la leh Itoobiya. laakiin in shacabka lagu talaalo jacaylka Itoobiya waa wax ugu ku ah bulshada Soomaalida. dhowrkii xaaladood ee ugu dambeysay waxay dad badan oo Soomaali ah si la yaab loogu sacabtumeen Itoobiya. waxaana ka mid ah xiisadda kala dhaxaysa Masar falalka Itoobiya ka wada gado Baayo Bakool in Zaylac noqoto fadhiga ciidanka badda Itoobiya dekedaha qandaraaska lagu siiyay Itoobiya qariirada Itoobiya soo saartay oo labada wada mid looga dhigay faanka Itoobiya ee dagaalka ay la gashay Soomaaliya xadgudubka diyaaradda Ethiopian Airlines hadalkii ra'iisul wasaare Abiy ee ahaa in labada wada mid laga dhigo ciidamada cusub ee ay dalka soo gelinayaan Itoobiyaanku iyo dagaal dhawaan Itoobiya iyo Kenya ku dhaxmaray Mooyaale. dhammaan qodobadan iyo kuwa kale ayaa boqolaal Soomaali ah waxay si qanaaco leh u difaacayeen Itoobiya. arrintan inaad aragto waqti hore waa ay adkeed. hamiga ay xeeladu ku laran tahay ee la xiriira in labada wadan ee Itoobiya iyo Soomaaliya mid noqdaan oo Itoobiya ay maxamiyad ku haysato Soomaalida ayaa ahaa mid soo jiray ilaa xilligii boqor Haile Selassie ka talinayay Itoobiya. Ingiriiska ayaa qayb ka mid ah dhulka Soomaalida ku wareejiyay Itoobiya. geedka jacaylka ee Soomaaliya dhexdeeda looga taagay Itoobiya waxaa hareer socda geed kale oo nacayb xambaarsan oo loo taagay Kenya. sida ay dad xoogaal ah sheegeen arrintan waa qandaraas ballaaran oo dhowr waji leh sidoo kalena ay horboodayaan madax caan ah. in badan oo ka mid ah dadka Soomaalida ah ee nacbaa Itoobiya waxay taageeri jireen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markaas xildoon ahaa sheegina jiray inuu yahay Itoobiyaan diid balse hadda oo xukunka ay aad ugu milmay taliska Addis Ababa. lama yaqaan in taageerayaashiisii ay iyaguna Addis Ababa u galeen. goorsii horeysay xubno ka socday Itoobiya oo la kulmay qaar ka mid ah madaxda warbaahinta ee Muqdisho ayaa u sheegay inay muhiim tahay in la bedelo habtabinta wararka la xiriira Soomaaliya iyo Itoobiya maadaama ay wax walba isbedeleen. suxufiyiin badan oo qormooyinkooda ka bilaabi jiray Itoobiya iyo Soomaaliya oo ah laba wadan oo cadaawad soo jireen ay ka dhaxayso ayaa hadda bedelay hab qoraalkaas. dadka arrintan sida weyn ula socda waxay aaminsan yihiin in maskax dhaqidda bulshada sidoo kale loo adeegsanayo dhaqaale xoog leh iyo in la abuuro dhacdooyin maran habaabin ah. xisaabtii ka dhaxaysa labada wadan ayaa si weyn hadda isu bedeshay. sidoo kale Kenya oo iyaduna faragelin qaawan ku haysa gobolada Jubbada Hoose iyo Gado ayaa u muuqatay inay la wareegtay cadaawadii loo qabay taliska Itoobiya. arrintan waxaa ku laran qandaraas ay jilayaal ka yihiin Soomaali iyo Itoobiyaan sida ay adduunka TV u sheegeen dad xoogaal ah. marka la eego labada wadan ee dariska la Soomaaliya oo labadaba dhulka haysta waxaa jira farqi weyn oo la xiriira xagga wax wada qabsiga ganacsiga bulshada deegaanka iyo siyaasadda. Itoobiya ayaa guud ahaan Soomaaliya faragelin ku haysay tan iyo 1978 waxayna mar walba dhextaal wax dumina u ahayd arrimaha siyaasadda iyo ammaanka Soomaaliya. waqti dheer iyo xaalado badan kadib dad badan oo Soomaali iyo Afrikaan kala ah waxay la yaab ku tilmaameen sida fudud ee la isku moodsiinayo wixii labada wadan ee Soomaaliya iyo Itoobiya dhex yaalay iyadoo aanay jirin wax heshiis oo dhex maray labada bulsho. dawladda hadda Soomaaliya ka jirta ayaan dadkeeda la wadaagin waxa lagu bedeshay dabacsanaanta dheeriga ah aaminaadda degdegta ah iyo jacaylka loo qaaday Itoobiya. shacab badan oo hadda bedelay mowqifkooda Itoobiya oo naftooda ku abaabinaya rabitaanka Addis Ababa ayaan iyaguna haysan wax bedel ah oo ay naftooda la wadaagaan.